السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير شرفت لك وصول بدل العدالة channel هذا نرجو جرتكم ما سنت هذا كويس وتفضل سبسكرايب لايك شير كومنت انت وينو ديرجلين ولكن افتح العدالة ودبني وصول لابتي ما تو حرواينا إذا كاga sheekeeyo qisa aad u cajiib ah oo ka dhacday wadankeena hooyo ee Soomaaliya. Waxa jirtay gabar aad u dayar oo lagu magacaabo Asma waxa ay ku kortay tuulo yar oo Soomaaliya ka tirsan iyadoo aabaheed iyo hooyadeed ay nolosha u la halgamayeen si ay caruurtoodu u quudiyaan. Asma ayaa ahayd ardayad aad u firfircoon. Riyooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa inay noqoto dhakhtar si ay dadka tuulada ugu daaweyso xanuunada ay u dhintaan. Maalmaha ka mid ah hooyadii ayaa xanuunsatay si lama filaan ah. tuuladii waxay ahayd meel caafimaad aad ugu liitay. Isbitaalkan wuxuu ahaa isbitaal u jira 60 kiiloomitir. Ma jirin wax gaadiid ah. habeenkaas daruuro yaa cirka ku batay roobna wuu da'ay. Beeda wuxuu is yiri waan sugi doonaa subaxii laakiin Asma ilinta ayay la soo booday. haddii hooyadii habeenkan la sugi waayo waaba laga yaabaa in ay subaxdii arki weyno. waa sidee hadalka Asma ku tiri. waxay ku adkaysatay in hooyadeed la qaado xitaa haddii ay tahay iyada oo dhabarka ku qaadaysa. ayaa gabadhii la baxay hooyadeed. roobkii ayaa si xoog leh u da'aya. qiyaastii 3 saacadood kadib waxay gaareen bartamaha jidka. hooyadeedna halkaas ayay ku nabaxday. Asma waxay ku qeylisay hooyo ii sheeg inaad iga tagin. qisadan idbaarti labaad aad ka hesheen ila soo socodsiya wixii commentiga fariinta igu soo dhaafa. waa mahadsantihiin channelka like noo saara. ولكن أفتح العدالة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.